waxbartaan barwaaqo gaarne. maanta ayuu tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan ee TV-ga Ariel si rasmi ah uga furmay xarunta dhexe ee telefishinka ee magaalada Muqdisho, waxaana baratamayay iskuulada kala ah deegaanka Jazeero iyo Al-Masri Gubadley. tartanka oo xamaasad gaar ah lahaa ayaa guusha ay raacday iskuulka Al-Masri Gubadley. ka hor natiijada waxaa kelmad kooban jeediyey madaxa xiriirka jaamacadda Plasma Ustaad Cali Xaaji Cabdi Bare. Rahmatullahi wa barakatuh. Ramadaan Kariim dhammaan ummadda muslimka ah gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. anigoo fursadan ka faa'iideysanaya kuna hadlaya magaca jaamacadda Plasma oo aan ka socdo. waxaan marka hore u hambaliyanayaa xuduurka quruxda badan iskuulada maanta ee nasiib ku helay in tartanka lagu bilaabo. sidoo kale waxaan u hambaliyanayaa dhammaan iskuulada nasiib ku helay inay qayb ka noqdaan tartankan Ramadaan ee lagu talagalay dugsiyada sare 32 iskuul. dhammaan waxaan leeyahay dadaala insha Allah waad guuleysanaysaan. sidoo kale waxaan u hambaliyanayaa Maxamed Amiin oo dhankayga midig fadhiyo oo ah daadiyaha barnaamijkan ahna arday jaamacadda Plasma ka baxay ama ka aflaxay. run ahaantii aad bay farxad igu tahay munaasabad noocan marka aad soo xaadirto ardaygaagii uu fadhiyo uu hool intaan la eg uu gacanta ku hayo runtii waan bogaadinayaa. TV-ga Ariel hawsha quruxda badan ay bulshada u hayaan. waalidiinta ubadkan quruxda badan soo diyaariyay waqti galiyay aad baan ugu hambaliyanayaa. macallimiinta iskuulada waxaan u hambaliyanayaa. sidoo kale maamulayaasha iskuulada waan u hambaliyanayaa. waxaan sidoo kale u hambaliyanayaa dalada Sofen oo soo diyaariday su'aalaha imtixaanka. run ahaantii in shaqo noocan la qabto waan ogahay waayo muddo 10 sano ku dhow ayaan ka shaqeynayay su'aalaha loo diyaariyay idaacadaha iyo TV-da dalka ku yaala. waxaan la soo shaqeynay haddaan jaamacadda Plasma dhammaan idaacadaha dalka ku yaala iyo TV-da oo aan tartamada noocan aan aad ula diyaarinay. waan bogaadinaa tartanku ma aha tartan dadku ay ku wada qoslayaan. mar haddii tartan la yiraahdo qolo baa maartay dhinacooda guusha raaci doontaa qolada kalena wax badan ay ka bara doonaan. marka waan bogaadinaa. waxaan rabaa halkan inaan kula wadaago fursadaha jaamacadda ay ugu talagashay tartankan. tartamada noocaanana waxyaabaha gaarka ah ee jaamacadda ku dhiirigelida maxay yihiin. jaamacaddu waxay tartankan ugu talagashay dhammaan 32 iskuul inay heli doonaan tixgelin gooni ah maadaama ay tartankan qayb ka noqdeen. Plasma maadaama ay goobtan soo xadirtay waxay idinku bishaarinaysaa waxaa jiri doona fursado fara badan oo dhammaan isugu jira qaybaha jaamacadda ay bixido kulliyadaha jaamacadda ay bixido oo ah 35 program oo hoostaga 5 college ayaan idinku talagalnay. jaamacaddu sanadkan waxay u dabaaldegi doontaa sanad guridii 15aad oo ah jaamacad inta soo shaqeynayday bulshada inta la ay ku shaqeeyday. waan rajaynayaa inaad ka faa'iideyso doontaan. marka deeqda waxbarasho ugu talagalan tartanka dadka kaalmaha gala deeq waxbarasho oo gooni ayaan sii doonaa. 32 iskuulna fursadaha ka duwan dadka kale ay heli doonaan. aad u mahadsantiin TV-ga Ariel iyo asxaabta la shaqeeyda. guud ahaan waan bogaadinayaa xuduurka macalinka ku qoran Ustaad Yusuf hawshan aan rajeynay inuu qayb weyn ka yahay waan bogaadinayaa runtii. waxaan leeyahay guul wacan TV-ga Ariel iyo dhammaan asxaabta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu dambeyn waxaa natiijada soo bandhigay Professor Maxamed Ismaaciil Islow oo ka mid ah guddiga tartanka ee bisha barakeysan ee Ramadaan. maanta tartankeena lagu soo dhameeyay si habsami si wanaagsan. maanta waxaa halkan ku tartamay dugsiga hoose dhexe sare Al-Masri Gubadley iyo dugsiga hoose dhexe sare ee deegaanka Jazeera. su'aalaha la soo weydiiyay waxay ahaayeen 5 su'aal. dugsiga Al-Masri Gubadley wuxuu keenay wuxuu ka jawaabay su'aashii diiniga ahayd wuxuu meeshaas ku helay 2 dhibcood. su'aashii biology-ga ahayd way ka jawaabeen waxay ku heleen 2 dhibcood. su'aashii kale physics-ka ahayd saddexaad way ka jawaabeen Al-Masri 2 dhibcood ay heleen. su'aasha chemistry way gafeen Al-Masri School. su'aashii xisaabta ahayd way ka jawaabeen waxay ku heleen meeshaas 2 dhibcood. su'aalaha caadiga ay u jawaabeen waa 4 su'aal oo min 2 dhibcood ah 8 dhibcood. waxay faa'iido ahaan u heleen su'aashii ahayd diiniga ahaa su'aasha koowaad iyo su'aasha labaad iyo su'aasha afraad iyo shanaad ayay ka faa'iideysteen oo min 1 dhibcood 4 su'aal 8 haddii lagu daro 4na waa 12 dhibcood ay keensadeen iskuulka Al-Masri ee Gubadley. deegaanka iskuulka dugsiga sare hoose dhexe sare ee Jazeera deegaanka Jazeera
isagana waxaa la weydiiyey 5 su'aal su-aashii u horeysay diiniga ahaa ma ka jawaabin sidoo kale tan labaad su-aashii kale biologiga kama jawaabin waxay keensadeen eber dhibcood su-aashii saddexaad waxay keensadeen iyadoo sidoo kale ma ka jawaabin eber dhibcood su-aashii afraad sidoo kale kama jawaabin su-aashii shanaad kama jawaabin wax faa'iidana ma helin deegaanka jaziira wuxuu keensaday eber dhibco tartanka maanta wuxuu kusoo idlaaday 12 iyo eber Abdullahi Gacmo, Ariel TV, Muqdisho.